ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa toddobaad waa waxaan qaadaynaa mas'uuliyad bar ilmahaaga sida loo maareeyo nolosha iyo isxilqaamidu waxa ay tahay isaga oo yar u dhiib mashaariic yaryar oo da'diisa ah oo ilmaha mas'uul ka yahay tusaale ahaan sida qolkiisa bugaagtiisa dharkiisa iyo wixii la mid ah ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.